bulshada kala duwan ee ku dhaqana magaalada Balugubadle ee xarunta gobolka Hawd ayaa si adag uga soo horjeestay amar ka soo baxay xafiis wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed kaasi oo wasiirku ku amray mas'uuliyiinta gobolka Hawd iyo Maroodijeex inay muddo 3 cisho gudahooda ku raraan roolka ku yaala koonfurta magaalada Hargeysa isla markaasina uu maamulka gobolka Hawd uu si gaar ah u faray inay kantaroolkaasi geeyaan meesha loo yaqaan mitirka oo u dhaxeeya Habaasweyn iyo bulshadana gobolka Hawd oo isku jirta dhibaanada golaha deegaanka odayaasha iyo waayeel waxa kamid ah hadaladoodii Soomaaliland baynu nahay ee aanu 3 madaxweyne ku soo dooranay goobihii baan haddana raray waxa weeyaan waa arrin adigana ka go'an waxaan soo leenahay taa cadaab baan ka xignaa ama guri yaro control dimi ama xarig jar cadaabtaan ka xignaa waxa anagana loogu bilaabay waa 4 goobood ee goob doorasho ee la luminayo taasina macnaheedu wuxuu noqonayaa gobolkii oo la baabiinayo Maxamed Kaahin waxaan sugaynay gobolkan Hawd deegaanadii uu xukumayay ee gobol ahaan uu hoos tagayay inaad maanta ku soo dirtid baan ka filaynay kaamaana filayn maanta warqadii qoraal inta soo qortid inaad gudoomiyaha degmada Salaxle iyo Faraweyne aad ku soo qortid oo tiraahdo waxaan ku shirnay oo aan doonaynaa controlka inaynu rarno controlkan maanta mid la raray ma aha mid ku suuroobayna ma aha de gobolku wax qabad iyo ballaarin uu sugayay ma aanan eegahayn in 30 kilomitir ama 40 kilomitir gobolka lagu soo awdo mid kale waxaanu garan lahayn mid kasta oo laga bilaabayo Soomaaliland waxa looga bilaabo gobolka Hawd maanta 30 kilomitir baan ku soo oodayaa gobolkii Hawd ee u baahnaa ballaarinta waxaan aqbalaynaa ma waxaan komishiga ogeysiinayaan fariin ugu gudbinayaan komishiga doorashooyinka sharci dejinta baa waxaan u gudbinayaan iyo golaha deegaanka iyo baarlamaanka waxaan u gudbinayaa arrintaas inaanay mid suuragal ah noqonin Balugubadle aanay wax doorasho ka dhacay inta 7 goobood ay ka maqan yihiin ilaa balli mataan ilaa Faraweyne loo ogolay gobolka inuu xukumo oo dakhli uga soo ogolay anagu wala ogolana haddana dhacay ma yeelin loo baahay dadka sharciga istuur baa loo baahay sharci la kaalay sharci waxa ku goysateen Hargeysa ku raacineysaan la kaalaya anagu sharci darraan u aragnaa xasaasiyada iyo yaani de mushkiladda ka muuqata meesha shacbiga ka muuqatana waxay kaga timi markaa xukuumadii Soomaaliland taasina aan u aragnaa anagu nasiib darro waxaan leeyahay laga daayo Cabdiraxmaan Samriye TV-ga caalamiga Hon Cable TV xarunta gobolka Hawd ee Balugubadle